السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قضبض ugu weyn barnaamijkeena habeenimo waxa kamida war culus ayaa caawa soo baxay Iran ayaa lagu waramaya in lagu casuumay isbahaysiga difaaca Maka oo ay ku midaysan yihiin dawladaha Turkiga, Pakistan iyo Sacuudiga haddaba maxay uga dhigan tahay isbahaysigan Iran hadii ay ku soo biirto waxaan ku hayaa faahfaahin iyo macluumaad ku saabsan walwalka Israa'iil ay ka qabta isbahaysigan maalinba maalinta ka dambaysa si kordhaya ama si ballaaranaya markii hore waxa uu ka bilowday Sacuudiga iyo Pakistan hadda waxa uu maraya Pakistan, Sacuudi, Turkiya iyo Iran oo si rasmi ah loogu casuumay qodobada sidoo kale aanu barnaamijka idinku heynayana waxa kamida taliyaha guud ee ciidanka dalka Pakistan ayaa lagu waramayaa bari oo isniina in uu u ambabaxaya dalka Iran halkaas oo uu kula kulmaya madaxda ugu sarreeya dalkaasi xilli xiisada Iran iyo Mareykanka ay meel adag marayso wuxuu doonayaa General Asim Munir Iran waxay leedahay safarkan waa safar muhiim qodobada sidoo kale aanu barnaamijkeedu ku heynayana waxa kamida waxa isu soo taray oo banaanka imanaya khilaafka u dhaxaya ciidanka dalka Iran iyo madaxweynaha dalkaasi Masoud Pezeshkian mar kale ayuu maanta hadlay waxa uu ku baaqayaa in Mareykanka lala hadlo oo heshiis la galo halkii dagaal lagu baaqi lahaa laakiin ciidanka Iran taa mid ka duwan ayay qabaan haddaba ugu dambeyn banaanka ayuu yimid khilaafka madaxweynaha Iran iyo saraakiisha iyo guud ahaan ciidanka ilaalada dalkaasi qodobka ugu dambeeyana waxaan idinku hayaa wasiirka arrimaha dibadda dalka Iran Abbas Araghchi ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqay in Iran ay u diyaar garowday cunaqabataynta Mareykanku uu ku sheegay tii ugu adkayd ee taariikhda aadanaha in Iran la saarayo Abbas waxa uu leeyahay waan diyaar garownay qodobada iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaa barnaamijkeena habeenimo caawa war cusub oo caawa soo baxay oo lagu waramaya in uu noqonayo isbedel weyn oo bariga dhexe ka dhasho hadii ay arintani dhabowda waxa ay dhammaan qubradu isku raaceen in tani ay halis weyn ku tahay Israa'iil durbaba TV-yada Israa'iil caawa jiif ma jiro doodo waaweyn ayaa waxa laga qabanayaa arinta soo korodhay maxay tahay arintu warbaahinta Al-Maydan ayaa qortay warbixin cusub oo sheegaysa in Iran lagu casuumay inay ku biirto heshiiska difaaca wadajirka ah ee loo yaqaano Maka Defense Agreement oo ay dhawaan wada galeen dawladaha SPT ama Sacuudiga, Pakistan iyo Turkey haddaba Mahdi Rahmi oo madax ka ah wakaaladda wararka baarlamaanka Iran ee loo yaqaano Khan Ahmed ayaa waraysi uu siiyay Al-Maydan ku sheegay in Tehran ay heshay casuumaad rasmi ah oo ku saabsan inay ku soo biirto heshiiskaasi macnaheedu waxa ay tahay waxay noqonayaan meeshan shiicoy sunniyoy awoodihii muslimiinta dawladaha sheeganayo dhan ama ah oo hal meel iskugu imaaday dhammaantood waxay ka simeeyeen in Israa'iil ay khatar ku tahay waayo Sacuudiga wuxuu dareemayaa sida ay iskugu dhow yihiin Imaaraadka iyo Israa'iil oo halis u arag isfidinta Israa'iil oo banaanka sheegtayba waan qarsanin waxa loo yaqaan Israa'iisha weyn labo Pakistan oo u aragtay Israa'iil inay khatar ku tahay iyada kadib markii ay Narendra Modi si weyn loogu soo dhaweeyay gudaha Israa'iil oo heshiisyo la galay oo ay leedahay waxa la siixinayna heshiisyo difaac sheekadan waxa dadajiba la leeyahay in Iran miiska looga yeero waxa dadajiyay markii Israa'iil ay isku dayday ama ay ku dhawaaqday inay Greega India Imaaraadka iyo Israa'iil ayagana kutla noqonayaan oo heshiis difaac ay wada galayaan أنا برجع حلبة وجيو يا شالليه شاكذا المركا إن محي إيران كسمينيسا رحمي وحيري ومهدي رحمي مدحا وكالة ورركا برلمان كإيران خانة مثلات الرحمي شاقي وحيري إيران وحي هالشيء عسومات أيقو بيريسو يشيز كمكا أرنتو هذا وحي كجر تابو يري دراسات هدي إيران أيقو بيرتو وحي نقونا يسابو يري سبدل وين ودا برجع دحي كتماد أنا برجع دحي سبدل وحي كتنا عيان عادي أهين أنا قبرة ميليتري وحي ليهن digdigti Israa'iil boodboodkeedii way u dhamaan haddayba Israa'iil iyo Mareykan inta isku tageen iyo xulafadoodii ay ku rafaadeen inay Iran meel saaraan ana ilaa hadda wax ka qaadi wayn ilaa nidaamka difaaca uu ka dhamaado Israa'iil gantaaladii difaaca ka dhamaaday leeyahay Mareykan oo hub cusub dalbado ana intaas oo rafaada la galay bal ka waran Pakistan oo nuclear hayso Turkiga oo awoodda difaaca cirka iyo dhulkaba khatar ku ah Syria laftirkeeda waxa la sheegay inay dalbatay oo ay ku baryotamayso inay ku soo biirto laakiin adduunka marka adiga la rabo in lagu soo daro koox ama group dhisan waa in wax lagu xilana ay jirto dawlad iska tacbaanaya wax ka rab Suuriya hadda iska liliidaysa masaakiin way anaga wax yar dhaanta marka
iyadana way baryaysaa Iran waa lagu baryaa waayahay saaxiibada qiimiga loo qodobka markeen meesha ugu gudubno war kale warkeen la xiriira isna aan caawa barnaamijka ku eegeynaa Pakistan taliyaha guud ciidanka dalka Pakistan Asim Munir barito wuxuu safar u yahay Tehran caasimada dalka Iran halkaas oo uu kula kulmayo saraakiisha ugu sareysa ciidamada ilaalada kacaanka dalka Iran ugu dambeeyna madaxweynaha dalka Iran maxaa laga wada hadlayaa muxuu Asim Munir soo doonayaa intaana qaybta eegin balan isla eegno safarkan goormu ku soo beegmay safarkan wuxuu ku soo beegmay iyadoo Mareykanku uu ku hanjabay Iran in la saarayo taariikhda culeyskii cunaqabatayn ee bani aadam la saarkii ugu darnaa Iran ay ku hanjabtay in dalalka khaliijka iyo cid walba oo Mareykan garab ku siisa arintaasi inay dhulka la gadinayaan macnaha si daran ay u garaacayaan ayagana ay Hormuz ka mamnuucayaan maaragtay Faris ka mamnuucayaan macnaha meel walba Bershiya macnaha meel walba ay ka mamnuucayaan maraakiibtooda iyo ganacsigooda Asim Munir marka Pakistan waxay hore qayb uga ahayd wada hadaladii Mareykanka iyo Iran dhexdhexaadii weyn bay ka ahayd walina Pakistan waxay ku jirtaa dadaal ay rabtay inay arinta ku qaboojiso Iran waxay leedahay tani waa tallaabo weyn oo Asim Munir uu ku doonayo in uu Iran uga dhaadhiciyo in wada hadaladii la aqbalo dhinaca kale Mareykanka ayaa hore u sheegay wali in Pakistan ay wada hadalada xiriir Mareykanka la sameynayso oo ay doonayso xiisada inay qaboojiso xaaladoodu way sii kululaanaysaa xalliya Pakistan waxay u aragtay inaysan ku filnayn arintani kaliya xiriir qadka telefoon loo baahan yahay in la isla fariisto oo la is arko waxay doonaysaa inay hor dhigto qorshe kale iyo xal kale oo ay doonayso Iran inay ka gado lama garanay ma Mareykan baa soo diray ilaa Trump waa daalay markuu wareeraba dawladdu soo diraa hadda dadka qaar waxay aaminsan yihiin in waxaan Pakistan tan u hoos ka wada Mareykan u leeyahay marka Iran la hadla aniga heshiiskii hore memorandum of understanding hore isfahamkii hore macnaha macquul maaha bal ayagana markaa wax ka soo tanaasulaan anagana waxba ka tanaasuleena Iiraaniyiinta waa niman aad u madax adag ma yeelayaan waxay leeyihiin anaga waana la gardareyst hadda madaxweynihii Iran isbuucan mar qudbeynaa wuxuu yiri Mareykanku waa qaldameen buu dhahay waxay noo maleynayeen anaga inaan Venezuela Venezuela ka hadda social media ku xanaaqsiin way caaytamaan anaga wixii lagu sameeyay Venezuela ku socota boogta anaga waxa xasuustaa waagi Qadaafi la weeraray wiilkii Qadaafi ee markii dambe la dilay Saif al-Islam intuu soo istaagay telefishinka wuxuu dhahay dadka reer Liibiya soo la hadla hadda joogi weysaan baa gacanta intuu sida u taagay sida Soomaaliya noqon doontaan buu dhahay macnaha marba hadda tusaale noqoto waa ku dhamaad Liibiyaanka waa qabteen aabiisna saxuna u dileen asna gacantay ka jareen markii dambena way dileen gurigiisa loogu imaado waa la dilay marna waa la dilay isaga waqti dheer kadib macnaha hadda Iiraaniyiintu waxay leeyihiin anaga waxa naloo maleeyaa Venezuela ninkii Venezuela haystay oo hadda Mareykanka lagu xiray la soo qabtay maalin cad wuxuuba noqday tusaalo adduunka tusaalo ku noqday ana odayga asoo diyaar ahayn oo Mareykan la dagaalay Iran laakiin waxay leedahay anaga 25 sano 30 sano diyaar garoobeen nimankan anaga Israa'iil Mareykan ay isqabaneen waa ogeyn hadda marka maxaa xala hadda xalku wuxuu ku jiraa Pakistan barito Asim Munir markuu tago Tehran wuxuu rabaa inuu ka gado Iran in wada hadaladii lagu noqdo bal aan qodobka meesha ku dhaafna safarkaas wixii ka soo baxay isla arki doonaa qodobkan ku xiga aan isla eegno isla qodobkan la xiriiro waxa la leeyahay waxa banaanka soo baxay khilaafka Iran gudaheeda ka taagna bariyaan uu soo muuqanay laakiin ugu dambeyn caawa banaanku yimid Mas'ud Pezeshkian banaanku soo istaagay ninkan intii la socotay kow Somali Media barnaamij horaan uga sameynay markii la dooranayay uu soo madaxweynaha noqday ninkan wuxuu ku ololeynaa reer galbeedkan saaxiib la noqonaya maanta dagaal lagu jirin wuxuu leeyahay Mareykan aan saaxiib la noqono tanteena ku jirto leeyahay dagaal dan ugu ma jirto hadda iyadoo la leeyahay Iran cunaqabateena la saara Mas'ud Pezeshkian wuxuu la soo istaagay aan Mareykan la heshiino memorandum of understanding dib ha loogu noqdo waxa laga bedelo heshiis aan qaadano saraakiishii ciidamada waxa qoraysa Reuters AB Associated Press warbaahintii la yaaban waxaan aad u akhriyay qoraal ay ka qortay Reuters oo ay leedahay waxa banaanka soo baxay khilaafka madaxda Iran gaar ahaan madaxweynaha iyo taliyaasha ciidanka dalka Iran macna in la is-aado ama odayga la xiro ama la afgambiyo bas hartay wax kale u haray malahan baalale laakiin mowqifka Mas'ud banaanku soo istaagay wuxuu leeyahay hanjabaadda lagu hanjabayo in Mareykan laga aarsanayo dalal kale la weerarayo dariska la aadayo anu maslaxad uma arkaa buu leeyahay waxa maslaxad u arkaa in la wada hadlo nimankan way careysiin waxay leeyihiin hogaamiyeen ruuxigana laga dilay waa sida iyaga leeyihiin Ali Khamenei laga dilay Ayatollah Ali Khamenei waxaana laga dilay Ali Martin Larjaniana laga dilay taliyii sare amniga macnaha Mareykanka anaguna soo weeraray kaabayaasheen dhaqaaluhu burburi infrastructure-keenu burburi ma anaga heshiis dalbaneeno mise isagay tahay inuu isu soo dhiibo raali gelin bixiyo magdhow bixiyo Iran banaanka ka maro Hormuzna Iran u daay maya
مسعود wuxuu leeyahay aan waxaas oo dhan ka hadalno horta arrinta magdhowga iyo xagga naga dhig bal dagaal kale dadka reer Iran ma awoodaan cuno ilaan Mareykan had duqeyn kale ma sameeynayo xanibaadu raba inuu ku soo rogo laakiin cilada Mas'uud dhinaca kale uu ka baqanayo ama uu ka cararayna way jirtaayo xaqiiqda waxay tahay nimankan Iran taliyaasha waxay leeyihiin aan weerarna wadamada garabka siiyo Mareykan anaga dagaal aan qaadno saldhigiisa aan hadii cuno qabateen la saaro ilaan Iran hadda lacagteedii way sii dhacday dhaqaaleedu uu sii adkaanaya inkastoo sanadkan bilowgiisii ay 7.5 bilyan oo dollar ay sameeyeen arrintaas inay soo bandhigaan ma ahayn baa la leeyahay bandhigii wuxuu keenay ay ku faaneen in Mareykanku uu hadda dhoo isna albaab walba email walba oo maraakiibta Iran shidaal laga iibiyo ama shidaalkooda uu maro ayaan garaacayna macnaha waxaan u qabateynayna ma ogolaanayno Iran marka waxay sawiranaysaa dhaqaalihii Iran oo squeeze lagu macnaha la ciriiriyay oo haddaba xaaladdu ku adagtahay ciriirisay gash iyo Mas'uud waxa uu sawiran ciidanka ilaalada kacaanka oo gantaale iyo duqeymo kala isticmaalo drones wax ku weeraray ilaan dhinacan imaaraadkana ganacsiga Iran way ciriirisay way ka jartay Mareykanka cuna qabateen uu ku soo wadaa laakiin Iran maxay haysataa waxay awoodaa baa la dhahay dalalka khaliijka intooda badan ee dhulka dhigto Mas'uudna waxa uu leeyahay war dagaal kale aan sii galinina laakiin Mas'uud dhinaca kale wuxuu mowqif la qaadan baa la leeyahay xaalad dagaal dalkiisa iyo dadkiisa dhinaca gooliyu ka socdaa baa la leeyahay isagu baa gooni uga taagan ana lama garanayo waa laga yaabaa dhowr madaxdiisa hoggaankiisa inay la wadaan laakiin isaga banaanka ayuu soo istaagay ay leeyihiin dadka arrimahan ka hadlay sida warbixintu ay qorayso qodobka ugu dambeeya barnaamijka walaalaha qiimiga loo waxaynu ku soo xireynaa isla qodobka qodob la xiriira caaw Iran ay noo saaran tahay Iran waxay sheegtay caaw inay diyaar garow weyn u gashay waxa dhahay hadalkaas wasiirka arrimaha dibadda dalka Iran waxaana qoraysa Reuters iyo warbaahinada kale Abbas Araqji waxa uu leeyahay haddaan nahay Iran macnaha arrinta Mareykanka uu ka hadlayo cunaqabataynta wax soo boodaa ma ahan bay leeyihiin anaga waxaan hore qiimeyn u sameeynay buu leeyahay suurtagalnimo wax walba Mareykan ooga imanayo oo ay ka mid tahay cunaqabataynta haddii uu ku hanjabo laakiin caaw hadal yaab loo ka dhawaajiyay Abbas Araqji waxa uu leeyahay Iran waxay diyaar u tahay in Mareykanka mar kale ay fashil dhex fadhiisiso waxay leedahay anaga fashilina bay leedahay Iran awoodii Mareykanka ee military gantaaladiisa casriga ah droneski sirdoonki wixii uu sheegay Tehran baa fashilisay leedahay haddana adduunku wuxuu ku gumaysto waa cunaqabateyn bay leedahay oo Iran intaas oo sano lagu hayay waxaan dunida u ballan qaadaynaa buu ku leeyahay in cunaqabateyntiisana aan fashilinayno macnaha Iran waa diyaarsan tahay buu leeyahay bal waxaan uga jawaabi doonaa buu dhahay si adag oo isaga iyo cid walba oo ay soo raacdo ay ka shalaayi doonto macnaha xanuun ay dareemi doonto ayaan uga jawaabi doonaa ayuu leeyahay Mas'uud aan idhaahdee Abbas Araqji taas oo macnaheedu ay tahay in Iran ay diyaar u tahay dagaal dhinaca dhaqaalaha oo ay gasho waayahay saaxiibada qiimiga loo qodobka markaynu meesha uga gudubno intaynu barnaamijka soo xirin waxaynu ku soo xireynaa Israa'iil dhinaca kale waxay wali weerar ka wadaa Gaza wararkii ugu dambeeyay Gaza oo ay qorayso AB News Associated Press iyo warbaahinada kale ayaanu barnaamijka ku soo xireynaa warbixinta waxay leedahay oo ay qortay AP in duqeyntii Israa'iil ay ka geystay maanta Gaza ay dishay wiil yar oo 4 sano jiro macnaha wali Israa'iil waxay wadaa dhibaataynta carruurta reer Gaza halka dad kalena ay ku dhaawaceen dhacdadan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo weerar goosgoos ah ay wali ka dhacayaan Gaza inkastoo uu jiro heshiis xabad joojina wasaaradda caafimaadka Gaza ayaa sheegtay in tirada dhimashada guud ee dagaalka ay dhaaftay 73,400 oo qof macnaha waxa dareemi kartaa dhibaatada reer Gaza iyo xaaladda adag ay ku jiraan gaar ahaan uga imaanayso ciidanka Israa'iil waayahay saaxiibada qiimiga lahow guud ahaan barnaamijkii habeenimo oo aad kala socoteen